ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان waan idin salaamay walaalaha qaaliga ah meel baad caalamka joogtaan si walba in soo gaaraya muuqaalkayga waxaan idinku salaamayaa salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. marka xigto waxa maad iyo amaan iska leh Allah subhanahu wa ta'ala waa Allah isku kaana keenay dhamaanteen baalka kale waxa maad iska leh adiga daawada ah maadaama aad fiidiyoga waqti ku bixisay waxaan kaaga mahad celinayaa sida wacan aad fiidiyoga u daawanayso waxa wanaagsan qofka markuu waqti galiyo inaad mahad celiso. inta kadib muuqaalkan waa muuqaalkii aan ku ballansaneen muuqaalkii aad wada sugayseen dhammaantiinba sidaan hore u soo sheegnay fiidiyogii aan ugu magac darnay xulashada daljir introductionkiisa waxa uu ahaa introduction aan ku faahfaahinayno inaan soo gudbin doono barnaamij taxane ah ama bilo ah. dabcan muuqaalkan waa muuqaalkii ugu horreeyay aan barnaamijkaas aan ku dahfuri doono hadduu ilaahi subxaana wa tacaala ka raali noqdo. ciwaankiisana waxaan uga dhignay bandhig book aan kusoo bandhigayno yani PDF aan kusoo bandhigayno book oo monthly ah ama bilo ah. intaan u gudagalin barnaamijkaas waxaan marka ugu horreysa aan u mahad celinayaa dhammaan walaalihii Soomaaliyeed kuwa oo fariimo badan soo qoray didna markii aan u bandhignay aan dhahnay introduction-ka aan yani lambarkan aan ku xusnay meesha kuwa oo inala soo xiriiray deedna fariimo badan akademiyada lagu daray aad baan idinkaga mahad celinayaa sida wacan aad u samaysteen waajibaadkaas. marka ugu horreyso intaan muuqaalka u gudagalin haddii aad naga mid tahay fiidiyoga like saar oo hore ee subscribe kugu saarneed haddii aysan kugu saarnayna waxaan si xushmad leh walaaltinimo la kaaga codsanayaa inaad fiidiyoga subscribe saarto like aad taabato deedna asxaabtaada aad u share garayso kuwa akhris ku fiican siday fiidiyogani uga helaan ayna ugu soo biiraan akademiyada xulashada daljir. dabcan muuqaalkan wuxuu noqon doonaa muuqaal aad u yar because waxaan ugu talagalnay inaan ku soo bandhigno PDF kaas oo monthly ku balan qaadnay. sidoo kalena waan salaamayaa walaalaha ku xiran channelka Amir Yare aad baan idin salaamayaa sida wacan aad fariimaha dhammaanteen inoogu soo dirtaan. dabcan haddii aad ku xiran tahay YouTube walaal daljir sidoo kale waxaad ku xiran tahay YouTube-ka Amir Yare labadooduba haddii aad yani aad mid ka mid tahay midna waad ka mid tahay waan kaaga mahad celinayaa sida wacan aad fiidiyowga ula socoto. waxaan isku dayi doonaa inaan buugga la soo baxo deedna aan idinla wadaago aan fariimo aan idinla okay buugga ciwaankiisa waxa uu yahay sidee uga gudbi kartaa caqabadaha guusha ka hortaagan intaynu buugga furin fadlan haddii ay jawaabtaadu tahay waa buuggaan u baahnaa commentii ku soo qor sidaas la mid ah yani badanaa dadka su'aalaha ay isweydiiyaan waxa ugu badan sidee uu gudbi karaa caqabadaha nolosha waa yani fariimo badan aad adigu isweydiinayso qof walibana qiyaxtaan buu u samaysanayaa qof waliba caqabada ay haysato. dabcan qoraaga buuggan ee magaciisu aanu ku soo afuri doono waxa uu noqon doonaa cabdifataax maxamuud ducaale cajab waa qoraa waana dhiirigeliye sidoo kalena waa dhalinyar Soomaaliyeed. okay bug ugu horreeya aan furno totally buuggan waa 161 page sidaan hore u soo sheegnayna waxaanu horey u ballan qaadnay inaanu samayn doono yani jadwal u gaara buugga la soo bandhigi doono monthly-gaas oo aad ku soo dhammayn doonto bisha si buugga kale bisha kale lagu diro idna bisha aad madaxa ku dogto oo ku qabuusato bisha dambana aad noqoto qof active ah yani hadalkiisa dadkoo idil ay ku cajabaan xaqiiqdii haddii aad wax badan akhriso wax badan ba ku siyaadaya in reality ka hadlayo aniga oo dhowraya waqtiga waxaan samayn doonaa inaan tusmada buugga aan idinla wadaago maadaama qof waliba waxa uu yani buugga uu akhrinayo waxaa waajiba inuu yani iska sii taxriif gareeyo iska sii information ka soo ogaado. marka buugga waxa ugu horeeyo waxa uu leeyahay yani 7 caqabood waaye 7 caqabood ayaa waxa ugu horeeyo qofku inuusan hadaf lahayn yani inuusan ahmiyad lahayn yani waxa uu buugga ku qoray caqabada koowaad waa hadaf la'aan ahmiyadda ay leedahay inuu qofku hiigsado yani ahmiyadda ay leedahay inuu qofku hiigsi yeesho. dabcan qodobkan ayaaba muhiim ah oo buuggan oo idil aad yani u iibsan kartaa iyadoo san iib ahayn yani aad u la digi kartaa didna aad u baxsan kartaa. waxaa jira madbacadooyin badan dadkiina Soomaaliya joogo madbacadooyin badan oo yani $2 $1 iyo $3 at least $3 kugu bixinaya jiro yani waxay ku dhufanayaan buuggii inta page uu yahay kugu dhufanayaan qof waliba waxay yani macaamiishiisa ku xiran tahay. marka muhiimadda aad u godan lahayd buuggan waa hadaf inuusan lahayn buuggan waxa uu fast kaaga dhigay waxa guul darada dadka ka horseedo waa inuu qofka uusan hadaf lahayn. waxaad arkaysaa qof hiigsanaya meel sare meesh oo uu hiigsanayana aanan hadhow yani marka uu bilaabay aan dhigin meeshaasaan rabaa waa caqabada ugu badan dadku ay indho la'aan ag maraan waa taa
okay caqabada labaad muxuu yiri waa qorshe yani inaad qorshe la'aan noqoto dabcan caqabada waxay ku saleysan tahay caqabada hore oo qofka duusan hadaf lahayn waxa sabab u noqonaya inuusan qorshe lahayn okay caqabad saddexaad muxuu yiri isku dheelitir la'aanta nolosha in reality qodobkan waa muhiim inaad adigu isku dheelitirnaato aad is aaminto shakhsiyan qofka aad tahay aad is ogaato waxaa laga yaabaa inuu muuqaalkan daawanayo qoraaga buugan cabdifataax maxamuud ducaale cajab markaaga mahadcelinaya saaxiib sida wacan aad buugan yani juhdi u gelisay waadna naga kasbatay inaan buugan la soo degno deedna aan dadka sii gaarsiino aad baan kaaga mahadcelinaya saaxiib qaaliya qodobka afaraad wuxuu yiri caqabada afaraad waxaa weeye maareynta waqtiga exactly waa yani boonti muhiima inaad ka fikirtana ay waajib tahay haddii uusan yani kuu maareysnayn waqtigaaga xaqiiqda in reality hoos baad u dhacaysaa oo asaagaaga waa ka hoos maraysaa maxaa yeelay qofka hadduusan waqtigiisa yani la xisaabtamin 1 minute 1 hour haddii aadan la dagaaltamin asaga kula dagaaltamayo ku cunayo waxaad arkaysaa adigoo maalinkii dhan hal meel taagnaa yani daqiiqad ay kugu dhaaftay waxaad arkaysaa in maalinkii idil aad 1 hourkaaga aad u xiisto 1 hour kalena aad u xiisto si aad 1 hourkan ugu faa'iideysto kan kalena ugu faa'iideysto dadka yani guulaysto waqtiga la dagaal waqtigaaga si aad yani uga awood badnaato waqtigaaga qodobka shanaad caqabada shanaad waxay sheegaysaa yani aaminaada inaad adigu is aaminto waa muhiim inaad is aaminto qodobkan shanaadna waa very important is aamin qofkaad tahay adigu isku kalsoonow in reality guul iyo guul darooyinba waad la kulmaysaa guusha ugu saraysana waad gaaraysaa adigoo aadan isdhibin weliba marka adigu is aamin markaad is aaminto dadku waxay doonaan sameeyaan adigu is aamin wax waliba aad sameynaysana do it everything caqabada lixaad kalsooni darro waa exactly haddii aadan kalsooni isku qabin xaqiiqdii guul haweysanba guul oo magaalkaaga iska maro bariiskaaga dhacso oo dadka waxaad lamid noqotaa aana la tabin markay dhintaan haddii aadan isku kalsooneen inaad reality haweysaninba inaad guul gaarto oo maxaa yeelay kalsoonidu waxay ka mid tahay aasaaska guusha guul daradana way sababtaa haddii aad kalsooni darro isku qabto okay annaga oo ku salaynayna waqtiga aan u gudubno caqabada toddobaad ayaa waxa ku qoran curyaamiyaasha yani afgarashadooduna ay tahay hanjabiyayaasha okay waxaad malaynaya inaad horeyba ka garataad qalin qaadato horeba ka calaamadeysay waxaa loola jeedaa yani waxaan anigu u fasirtay fasirad ahaanteeda dabcan wax kale u garanaya qoraagii aan u fasirtay aniga inay tahay hanjabiyaasha yani dadka hoos ku dhigaayo dadka ku hanjibinayo yani dadka hamiga oo maaragtay meeshaad hiigsanayso necab markaad dhahdo waxaanan sameyn hoos ku ridayo dadkaas ula jeeda oo qodobka ka hadlaa waan isla akhrin doonnaa dhammaan qodobadaan idin dabcan anigu yani tusmadan waxaan u fahansanaha oo keliya ku sheegaya la deg descriptionka hoose yaallaa isiga oo free ah idina $2 $1 oo lagu bixiyaa buwaagta madbacdaha tag idina ii daabacday 1 monthgaasna kusoo dhamay buugga waxaad noqon doontaa biidnillaah qof isku filan kalsooni ay ku jirto caqabad walba noloshana la taagsan doono dabcan waxaan u malaynayaa dhammaan su'aalaha ay soo weydiinayseen oo yani aad iga soo weydiinayseen fariimaha dhanka WhatsApp iyo Instagram-ka inaad joojin doontaan because qof waliba waxa uu leeyahay sideen u guuleysan karaa sideen caqabada ula kulmi karaa su'aalaha idil buugaagta hadii aad akhriso dhammaan waad ka kasban doontaa biidnillaah albari caqabada sideedaad aan ku soo afmeerno barnaamijka aan ugu magac darnay xulashada daljir bartigiisii koobaad waxa uu qoraaw ku soo afmeeray wanaag saadsiga iyo xumaan saadsiga yani inaad wanaaga saadsato oo taariifta aan u faahfaahsan inaad yani aad dhahdo anigu khayrka iyo yani masaakiintan caawiya wanaaga aad saadsato yani taariifta aan u faahfaahsanahay wax kale ma ahana waa inaad wanaag saadsiga waxa uu qoraaw ula jeedaa dabcan sidan anigu u fahmay inaad adigu guul saadsato aad dhahdo waan guuleysan karaa waan qaban karaa waxaas waa samayn karaa masaakiintan caawina saan baan yeelayaa oo wanaag aad saadsato sidoo kale waxaa kasoo horjeedo ah xumaan saadsiga inaad xumaan saadsato sidoo kale inaad dhahdo ciyaaryahan hebel baan noqon sidaan baan ka dhaca saan baan noqon yani waxyaabaha waa taqaanaa hore inaad ka gari kartaa la rabaa inaad xumaan saadsiga badanaa dhalinteena una isticmaalaan waxay leeyihiin anigu waxaan noqonayaa ciyaaryahan noocaas ciyaaryahan saas inaad xumaan saadsato waa sidaan u fahma aniga dhammaan qodobada oo idil waa buugga tusmadiisa koowaad si aad buuggan u aqriso monthly-gan aad ula qabsato dhammaan walaalaha Soomaaliyeed ee ku taxan
xulasho daljir barnaamijka aan ugu magac darnay waxaa kugu waajibay inaad sameyso stepyadan first inaad lambarka descriptionka yaallo lambarada descriptionka yaallo aad soo qorato didna whatsappka aad ka soo qabato si lagu caawiyo oo lagu daro akademiyada xulasho daljir oo aad u hesho buugga oo free iyo jadwalkiisa oo saxan يعني بيشان هذا أنا مقال كان صادق إنك حساب صو إنك حساب ستال غير ديدنا بيشان هذا أنا مقال كان صادق إني حساب صو لما ولا الله كجرو إنك قرطان اسكت ضي بيشان ديدنا مركن سدح بالمرة إنه بل أدي وكله يا مرايات مثل هذا حقيقة واحد وهذا اللي دون تأخذ كنت نجرا يعني ولا حس ده لأن يرنمد تا وحصة وح كلام أنا وآخر سكات بديسة دلنتو إذل وتكسر ما يساع oo darajo fiican baad hiigsan fikir fiican ba kula soo dhacay akhristaha waxa uu ka cimri dheer yahay dadku waxay dhahaan akhristaha waxa uu ka cimri dheer yahay kana wax akhrin marka ka cimri dheeraw kan asaaga ay kula tartamay maanta aanan garanaynin sida wax loo akhriyo yani garanaya laakiin ag maraya markii yani akhriska iyo waxaas oo loo soo bandhigo buugani sidaan hore u soo sheegnay waa 161 page markaan divided sameynay aan qaybin sameynay 30 maalin waxa uu ku noqday min 5 page in lagu akhriyo dabcan adiga sidoo intuu akhriso laakiin 5 page maalinku way ka badan tahay in 1 minute kuma qaadanayso inaan yani 1 minute waxaan u leeyahay 1 hour kuma qaadanayso inaad 5 page akhriso deganaan u akhri saas lagu isku dul saaro koobka shaax soo qaado deedna xaad sameysaa wax kala sameyn buugga barbar dhinac u gadi markaad akhriso isku laab waxaad akhrisay adigu reaction deep يعني فعل بحي because واحد أغرس عقبة وهرسي هدف الآن بوق الله هدف ما حكى شيء أديكوا إيش هذا ما information أتلا حقيقي هذا جدي بقى كل كحول أغري أديكوا هذا يعني جارين بقول عندكم بيجسمها لحظة كبيج وهرس أديكوا هذا جارين أسبدلي مركز لما سنة أديكوا مركز يعني صوت البندونو إن برنامج جدا لصيبة ديو دينا بوقتها bil waliba laga soo yareeyay waliba hadii yani ay madasha xulasho daljir akademiyada day saad u badato hada yani ku dhawaad dad badan waa heena marka waxa la rabaa in ay badato si yani dadka ay codsiyadu u bataan ay u dhahaan yani monthly inuu dheertahay per week nooga dhig yani 15 maalin 10 isbuuci inaad buug noo soo dhigto nooga dhig kaana waxay ku xiran tahay inaad adigu go'aan soo gaarto aad dhaahdo waan ka helay buugta soo dhigto dabcan aad baan islaamaya marka ugu horeyso walaalaha Soomaaliyeed meel walba caalamka joogtaan dhammaan walaalaha ku xiran jiraalka caamir yar iyo soo kala walaal daljir dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh وأكرمه وجاد والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد إن القراءة نعمة أوصى بها رب العباد اقرأ فإن العلم مثل الصبح من بعد